السلام عليكم طمان انت سماها جعل والدي سلامي ugu horeen magacaygu waa Mustaf Xasan degan duulada Sabyo ee gobolka Shabeellaha Dhexe waxaan rabaa in aan idin la wadaago qiso jacayl oo dhab ah oo aniga igu dhacday waxaana qisadaydan ugu magac daray jacaylkii habsaamay 15kii bishii 6 2022 ayaa waxa bartay gabar lagu magacaabo Faadumo Siid Cali waa gabadhii ugu furfurneed duulada maalin maalmaha kamid ah ayaa waxa dhahay waxaan rabaa in aan arin ku sheego taas oo ah mid qalbigayga ka dhex guuxayso gabadhii waxay igu dhahday ii sheeg anigoo ka walwalsan ayaa ku dhahay ka waran haddaan nolosha wadaagno oo aan farxad wada qaybsano maxaad ka qabtaa markaas ayay igu dhahday waan ka soo fikirayaa ee waqtigiisii waayahay ayaana ku dhahay kadib waxaan soo aaday xaafadda balse intaan soo gaarin ayaa waxaa dhex ku arkay saaxiibkayga oo lagu magacaabo Xasan Abuukar waxa uu igu dhahay saaxiib maanta waad murugaysan tahay maxaa jiro aniga oo aan wax jawaab ah siinin ayaa ka soo socdaalay kadib waxaan iska galay qolkayga waxaana qalbigayga soo gaaray erayo aad u macaan kuwaas oo ahaa mahigaan jacayl baa dhex maquuraya fadlan haddii aad ka heshay qaybta koowaad ee jacaylkii habsaamay ku soo bir page-ka Kulmis Channel oo follow dhaho haddii aad horey nala joogtayna like inoo saar muuqaalka siina share gareeya la soco qaybta labaad mahadsanid